السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abda official. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, like-tana ha ilaawin hadduu alla idmo insha allah. Muuqaalkan waxaa ugu hadli doonaa muhiimadda ay leedahay in la barto dhaqaalaha. Maxaan u baranaa cilmiga dhaqaalaha? Waa kuwaan 5 sababood oo muhiim u tahay barashada cilmiga dhaqaalaha. 1. Wuxuu ogeysiiyaa go'aamada. Dhaqaaliyahanadu waxay bixiyaan macluumaad iyo saadaalin ay ku wargeliyaan go'aanada ka dhex dhaca shirkadaha iyo dowladaha dhexdooda. Aqoontan dhaqaalaha ah ama sirdoonka dhaqaalaha waxay ku saleysan tahay mar walba xog iyo tusaale. 2. Dhaqaaluhu wax walba ayuu saameeyaa. Arrimaha dhaqaalaha ayaa saameyn ku leh nolol maalmeedkeena. Tan waxaa ka mid ah arrimaha sida canshuuraha iyo sicir bararka, hantida, sinaan la'aanta iyo suuqyada soo baxaya, iyo tamarta iyo deegaanka. Mowduuc ballaadhan. Dhaqaalaha ayaa jawaabo ka bixiya arrimo badan oo caafimaad, bulsho, iyo arrimo siyaasadeed oo saameeya qoysaska iyo bulshooyinka kale. 3. Saamaynta warshadaha. Shirkadaha dhammaan noocyada iyo warshadaha waa inay ku tiirsanaadaan dhaqaalaha, ha ahaato tan cilmi baarista iyo horumarka, istaraatiijiyadaha qiimaha, ama sida loo xayeysiiyo. Saameyntan ballaaran waxay ka dhigan tahay barashada cilmiga dhaqaalaha inay ka furi karto xulashooyin xirfadeed kala duwan dhammaan qaybaha dhaqaalaha, laga bilaabo beeraha ilaa wax soo saarka, bangiyada iyo la talinta. 4. Waxay dhiirigelisaa guusha ganacsiga. Fahamka sida macaamiisha u dhaqmaan waxay muhiim u tahay meheradu inay guuleysato. Dhaqaaliyahanadu waxay adeegsadaan aragtiyo iyo moodalo si ay u saadaaliyaan dhaqanka una wargeliyaan xeeladaha ganacsiga. Tusaale ahaan, sida loo falanqeeyo xog weyn, taasoo keenaysa in laga dhigo ganacsiga mid guuleysta. 5. Aragtida caalamka. Dhaqaalaha wuxuu saameeyaa adduunka aan ku noolnahay. Fahamka aragtiyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, mid taariikhi ah iyo mid hadda jirta, waxay bixin kartaa aragti wax ku ool ah oo ku saabsan sida dhaqamada iyo bulshooyinka kala duwan ay kula dhaqmaan shirkadaha caalamiga. Fahamka dhaqaalaha adduunka ayaa fure u ah wadista guusha. Haddaba, intaani waxay ahaayeen qodobada muhiimka u ah barashada dhaqaalaha. Intaa iyo inka badanna way jiraan oo 10, 20, 30 qodobo way jiraan, laakiin intaan ayaa isleeyahay ayaa ugu muhiimsan. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad horey nala joogtayna like-ta noo badi. Fadlan share garee insha allah. Soo dhawaada mar kale, mahadsanidin.